وسؤال داويني ذلك يا إسكالي كان قبيل كديداني بالمدى دوناني iyo Zakariya Maxamed Ciise Wadani ayaa xariga ka jaray barnaamij system solar ah oo laga hirgeliyay magaalada Wedwed waxaana munaasabadii xariga looga jaray ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool deegaankaasi sida dhalinyarada cuqaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaankaasi munaasabada oo ay ka hadleen mas'uuliyiin kala duwan ayaa waxay u mahadceliyeen Zakariya Maxamed Ciise Wadani oo isku howlay taabagelinta iyo fulinta barnaamijkan dhanka kale wariye Zakariya Maxamed Ciise Wadani oo munaasabada ka hadlay ayaa u duceeyay dadkii ka qayb qaatay hawshan wajigeeda koobaad waxaana uu ugu baaqay qurba joogta iyo gabi ahaanba ummadda Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan barnaamijkan looga hirgelinayo deegaanka Wedwed system solar ah isla markaasna aan ugu talagalay inaan daaha ka furno ama xariga ka jarno barnaamijkii muddadanba social media ku jiray ee ahaa solar systemka sidaad ogtihiin shalay ayaan solarkii taagnay waxaana testii koowaad aan qaadnay xalay waxa uu noqday midna qanciyay oo ah in aanu iibsan karno solarkaas barnaamijkan wuxuu ku yimi qorshayska wuxuu qabsaa hay'ad maamul iyo dawlad cid barnaamijka nagu taakuleynaysa ama barnaamijka fayskiisa koowaad wax nagala qabatay ma jirto waa barnaamij isku tashiya dadka qurba joogga ay ka soo jeeda degmada tan Wedwed aanu la xidhiidhnay waxaan aanu Zakariya aan codsi ugu gudbiyay in aanu helo degmadayada Wedwed maadaama ay tahay degmo aad u ballaaran aad u population badan maanta aad degmo kobcaysa oo dhaqaalaheeda iyo horsocodkeeda iyo horumarkeeduba uu kor yahay in aanu kaliya ay magaalada u baahan tahay inaan helo baalayaashii solar systemka waxaan rabaa halkan aan uga mahadceliyo dadkii barnaamijkaasi fayska koowaad igala qayb qaatay oo runtii waqti badan igula bixiyay sidii barnaamijkaasi uu hirgeli lahaa maanta waxay ka mid tahay maalin weyn oo ah maalmihii ay rumoobeen rajadii ugu muhiimsanayd ee aan lahaa oo ah in aan maanta solar ay Wedwed hesho dad badan ayaa u arkayay barnaamij aan soconaynin dad badan ayaa u arkayay wax iska khiyaaliya oo aan la heli karaynin balse kuwaas waxaan ku qancinayaa oo aan u sheegayaa in ay dadku haddii ay isku tashtaan ay iyagu gaari karaan horumar waxna ay qabsan karaan waxaa barnaamijka dadkii aan u soo bandhigay kow ka ahaa shirkadda Telesom maamulaheeda Sheekh Cabdilaahi Cawad oo dadkii kowga ka ahaa aan u soo bandhigay Cabdilaahi Cawad wuxuu ballan qaaday in shirkadu ay bixinayso ay shirkadiisu bixinayso waxa arintu shirkadda Telesom aan u soo bandhignay in ay magaalada geliso baalayaal leeyda kuwaas oo gulubada waaweyn ah ay geliso waxaana shirkadda Telesom ay qaadatay in guud ahaan xaafadaha iyo waliba sharciyada waaweyn ee magaalada Wedwed ay leedahay in ay shirkadda Telesom si free oo lacag la'aan ah ay ku gelinaysa baalayaasha iyadoo waliba iyadu isticmaalaysa guluubyada ay lacagta bixinayso wax loo dhigaa ma jiro waa horumar iyo talaabo ay soo kordhisay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa ururka Anfac Foundation oo bixiyay lacag $300 qof kasta oo wax bixiyayna waa sheeganaa waxaan u mahadcelinayaa Aamina Laki madaxa MCH ka degmada Wedwed oo bixisay $350 iyaduna bixisay ayaan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa Foosiye Ciise Xaaji Maxamuud oo Ingiriiska joogta kana mid ah qurba joogta degmada u dhashay oo bixisay $175 waxaan u mahadcelinayaa challenge-ga ama jamciyadda khayriga ee Jidaal Foundation oo iyaduna bixisay $350 waxaana loo bixiyay Xaaji Cali Jidaal Ilaahay ha gaarsiiyo baan leenahay leedkaas intuu baxayo ee la anfacsanayo waxaan u mahadcelinayaa oo aan marnaba laaweynin jaamacadda Sahal Software oo bixisay $1400 aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa jaamacadda Sahal waxaana leeyahay ardayda dugsiyada sare ee iskuulkan ka baxda in ay calaaqad ay la yeeshaan jaamacaddaasi saaxiib joogtana ay ka dhigtaan guud ahaan cid kasta waxaan leeyahay jaamacaddaasi Ilaahay ha sharfo ilaahayna calankeeda kor ha ka yeelo waxaan u mahadcelinayaa Cabdirasaaq Dhabuuke oo kamid ah dhalinyarada ka soo jeeda degmada Wedwed isla markaasna laascaanood ku nool waxa uu bixiyay $175 waxaan u mahadcelinayaa injineer Faarax Sugaal oo isaguna bixiyay $350 isaguna kamid ah
dadka haldoorka ee degmada ka soo jeeda ilaahay ha sharfo waxaan u mahad celinayaa qurbo joogad Xaliimo Jaamac Awad oo iyaduna bixisay $200 ayaan iyaduna u mahad celinayaa waxaan leeyahay meeshad ka saartay ilaahay mid ka badan ha ku geliyo waxaan u mahad celinayaa xildhibaan Dhagaxtuur Xasan Ducaale Cali oo bixiyay $1400 waa murashax buu u tartamayay xildhibaannimada degmada laga soo doorto beesha guuleed garaadna ay u dooratay waxaan leeyahay qofkii wax qabanaya muhiima dadkana wax u qabanaya $1400 buu bixiyay waxaan leeyahay ilaahay rajadaada ku rumeeyo ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waxaana ku leeyahay codkayaga waa ku siinay waana nabadtalaysaa waxaan u mahad celinayaa gabadh la yiraahdo Nimca Ciise oo iyaduna Mareykan joogta oo $50 la baxday waxa igu balana inaan qof kasta oo $1 bixiyay aanu social media aan ka sheegi doono qof kastaabana taariikhdu ay qori doonto dunida dadku iyaga wax qabsada waxaan halkan fariin uga faa'iideysanayaa qurbo joogta ka soo jeeda degmada Woodward waxaan leeyahay ka qayb qaata horumarka degmadiina haddaad idinku waxba qabsan cid wax idin qabsanaysa ma jirto hay'adaha iyo maamulada ku taxalluqa barnaamijyadan waxaan leenahay annagu waxbaan qabsanay waxaan nahay dad awood u leh inay wax qabsadaan maanta leerka waanu qabsanaynaa berina laamiga waanu qabsanaynaa saa dambana waxaanu qabsanaynaa biyihii waanu qabsanaynaa waxaanu dhisanaynaa horumarka iyo dhaqaalihi baanu dhisanaynaa leenahay ha ka qayb qaateen horumarka degmada ha ka qayb qaateen waxaan halkan laga hirgelinayaa barnaamijka solar systemka ee degmadu ay yeelan doonto waa la bilaabay oo kii horeeyay waa la taagay kuwa dambena insha Allah waa la bilaabayaa iyagana maanta waa xarig jarkii iyo xafladii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa Ilaahay baa mahad cid kasta oo ka soo qayb qaadatay dadka halka laga xadirinayo cid kasta oo ka soo qayb qaadatay waan u mahad celinaynaa waan u ducaynaa waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka ha idin saaro inta haddaan ka gudbo waxaanu halkan baaq uga diraynaa cid kasta oo ka mida qurbo joogta iyo guda joogta deegaankan u dhalatay oo awoodda hawsha inay ka qayb qaadato waxaanu leenahay hawsha khayriga ah ee horumarka ah ee bilicda magaalada cid kasta waxay ka qayb qaadan kartaa ka qayb qaadato waxaan kaloo iyagana ugu baaqaynaa sidoo kale hay'adaha hawlahan solar systemka iyo wixii la mid ah ku taxalluqay wax ka qabta iyagana waxaanu leenahay adduunka waxa ka jirta wax qabso aan wax kuugu dareen mar hadii aan wax bilownay oo qabsanay oo aan taagnay kuwii u horeeyay waxaan ugu baaqaynaa cid kasta inay hawshan kala qayb qaadato maamulada oo kale hay'adaha oo kale ummadda u dhalatay deegaankan iyo cid kasta oo samafalka iyo khayrka wax ka qayb qaadataba waxaan ugu baaqaynaa in hawshan kala qayb qaadata inay nagala qayb qaataan tiirabana aad iyo aad ugu mahad celiyo sikriyo wadani runtii de waxay tahay indhihiina maanta qof kasta oo macallin ah maanta qof walba indhihiisa ayaa u macallin ah qof walba taariikhda qori doonta qofkii dalkiisa wax u qabtay iyo kii dadkiisa wax u qabtay iyo kan wax u qabin waxay la tahay qof walba taariikhda u qori doonta magaalada intay soo jirtay inta qarni ay taagneyd iyo maanta qorshahan halka xadhiga laga jarayo haddana ma waayo intaas oo dad moogtay hore fakarka u keenay lama waayin laakiin waxa laga yaabaa fakarka waan lahaynba marka horta sikaridiisa intaasaan ku dhaafaya aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ilaahna waxaan ka baryahay in cimrigiisa u barakeeyo maskaxdiisa u barakeeyo aqoontiisa u barakeeyo insha Allah biidhnilaahi ta'ala khayr buu ka shaqeynaya khayrkiisa u heli doonaan taasaan kaga tagayaa ta kale waxaan rabaa insha Allah ta'ala dadka dal iyo dibadba waxay wax ku qabsan karayaan isku mid ay noqdaan oo isku gacan noqdaan tay wax ku qabsan karayaan taa weeyaan dal iyo deegaanna haddaan dadkiisa horumariyo waxaan ku baaqayaa dal iyo dibadba dalka la horumariyo ummadda si wax loo qabanayo ha loo qabto insha Allah ta'ala taana intaasaan ku soo koobayaa annaga ka shirkad ahaan kulli shirkadu markii labaad iyo markii saddexaad iyo markii afraad iyo markii shanaad iyo markii lixaad midna ma markay ka qayb qaato insha Allah ta'ala waxyaalaha khayraadka shirkadu way ku caan baxday waana sii wadi doonaa shay kasta oo dadka iyo dalka iyo deegaanka wadani ugu jirta iyo ummadaba insha Allah ta'ala shirkadu mar waa ka qayb qaadan doontaa oo qoladan iskeed suxil qaantay marka hore waanu idinka macdi celinaynaa hawsha wanaagsan ee qabateen maskaxda wanaagsan waxba lagaga daydaa ama qofka ha yaraado ama ha weynaado marka hore anigu waxaan boorinayaa shacabka magaalada hadaynu nahay inaynu kaga qayb qaadano waxa khayriga inoo ah ee wanaagga inoo ah ee horumarka bulshadeena ah inaynu ka wada qayb qaadano oo qof iyo karaankii waxaynu heli karno aynu tarno haday tahay dadka dibadda jira iyo dadka deegaankan jooga intii u dhalatayba inay wax ka qayb qaataan yaan anigu aad u soo dhaweynayaa waxaan rajaynayaa inaynu horumarka
deegaankeenna aynu dhammaanteen ka wada qayb qaadano hadday biyo gelin tahay hadday biyo tahay hadday nal tahay hadday arrimo caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay cid dadku haddayn wax qabsan cidna wax uban qabanayso inaynu isku tashanno aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa Sakariya Wadani oo barnaamijkan hindisihiisa lahaa cid kasta oo ka qayb qaadatay oo fikirkan la wadaagtayna waa u mahad celinaynaa arrintana waxaan leenahay waa guul weeye guul waxa weeye waa tallaabo tijaabo wanaagsan rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam khayru nnaasi anfa'uhum linnaas dadka waxa ugu khayr badan ninka dadka ugu waxtarka badan marka waxa weeye waa wado wanaagsan system solarkan aynu maanta wuu ka tagnay oo Sakariya bilaabay waxa weeye waa wado fiican weeye dad iyaga kalena waxaan leenahay war cid walba kuwii ka soo qayb qaatay gudaha iyo dibadba waa u ducaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka idin saaro dadka kalena waxaan leenahay war arinta lagu tartamo waxa weeye magaalada bilicdeedii iyo hadilanka security-geedii iyo nidaamkeedii oo dhan ayaa meesha ku jira marka aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa solar woodwood mashruucan oo aad iyo aad aan u soo dhaweynayno haddaan nahay bulshada reer Woodwood run ahaantii qayb lixaad leh waxa ka qaatay Sakariya Wadani oo ah wariye rugcada ah muddo dheer ka soo shaqeynaya saxaafadda haddana u gudbay in uu mashaariic fara badan ka fuliyo magaalada Woodwood anagu ku hadlaya afka Jidal Foundation waanu ka qayb qaadanay haddana waxaan rajaynaynaa inaan hore uga sii qayb qaadano ogna daafurkii barnaamijkii solar systemka ee uu waday Sakariya Wadani leerka ku shaqeeya qorraxda waxaan rabnaa halkan inaan uga mahad celino Sakariya Maxamed Ciise Sakariya Wadani oo aan runtii la oran karo magaciisa iyo isagoo isleeyihiin waayo marka la eego arrimaha khayriga soo uga shaqeeyo waxa horumarka deegaanka uga shaqeeyo waxaan oran karnaa waa laambada ay Woodwood isku aragto Sakariya Wadani haddaan Sakariya Wadani jirin wax badan Woodwood lagama arkeen waayo Woodwood meelo badan dad badan aan magaceeda aqoon buu gaarsiiyay Woodwood horumarkeedina qayb buu ka yahay waxaan oran karaa anigu waa laambada ay Woodwood isku aragto Sakariya Wadani bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan doonaynaa in halkan uga mahad celino Sakariya Maxamed Ciise Sakariya Wadani wariyaha deegaanka Woodwood iyo Caynba kaas oo sameeyay program uu ugu tala galay magaalada bilicdeeda inuu kor ugu qaado program kaas oo ah solar system ama wax la yiraahdo leer cadceedeedka kaas oo ka qayb qaadanaya horumarka magaalada hadii ay tahay xaq dhaqaale xaq amni iyo magaranayay xaq bilic soo celinba wayna dhalinyaro oo aad u dadaala mar walba deegaankiisa iyo bulshadiisana magac ku leh waxa jirta dhalinyaro group ah oo la shaqeysa mar walbana garab taagan oo ah garbaha kaliya uu ku duulo waa nin bulshadiisu ay jeceshahay aadna u daayar mar walbana u dadaala inuu dadkan wax u qabto Sakariya Wadani waxaan leeyahay hambali aad iyo aad u soo dhaweynaa waxaan kaloo aad u hambalyeynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay waan soo dhaweynaynaa waxaan kaloo baaq u sii dirayaa inay ka qayb qaataan cid kasta oo aan hore uga qayb qaadan aaminsanaana wax aan rumoobi karin inay tahay waxaan leeyahay arka inay wax rumoobayeen oo arrin dhaba ay tahay waxaan leeyahay ka qayb qaata allaale waxaad ku kordhin kartaan muruq iyo maskax maalkiina ka qayb qaata oo barnaamijka solar systemka halkan ka hirgeliyay oo bilaabay muddo 24 saac gudaheed ah aan dhameystirnay 24 saac gudaheed aan gaadhin ayuu noo shidnaa muddadaas kooban noo shidnaa ayaanu aragnay faa'iidadiisa oo aanu dareennay awl hore laakiinse maanu dareensanayn sidaa awgeed hadda waxaan leeyahay aad iyo aad u Sakariya ugu mahadsan yahay qoliyaha kale ee iyaguna wax ka geystay ee gacanta ka geystay sida shirkadda Telesom oo hadda hortaaganahay iyo shirkadaha kale iyo maamulada iyo cid kasta oo wax ka geysatay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaana leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadkan la baxay solar systemkan lagu horumarinay magaalada Woodwood ama NGO ya ahaadeen ama shakhsiyaad ahaadeen ama shirkadda Telesom oo markii labaad ee aan sawirkeeda arko dadka waxay ka qaadaysay wax kaga soo celisay haato aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan mahad gaar u celinayaa Sakariya Wadani magacii horta Wadani ah hore ma ahayn maanta uu Wadani waxa la yiraahdaa qofku inuu fahmo waxa uu abuuran yahay iyo waxa ka dambeeya
waxa uu abuuran yahay mas'uuliyadda dadka u hayo qofkaas wadani la yiraahdo waxaan kaloo yana u mahadcelinayaa NGO yar oo dadaala oo run ahaantii dadaal badan sameeya oo dhismayaal badan iyo ka qayb qaatay solar kamba oo deegaanada midna bayaal oo kale oo dhalinyaro isku tashatay iyaga iyo kuwa aan ku arkay balcadba run ahaantii waxaynu hadda fahmaynaa reer Wuluulow inaynu nahay dad wax qabsan kara ummadana caalamka aad arkaysaan hay'adaha aad arkaysaan dadka dhalinyarada iyo waayeelkaas laga soo goray ummad walba ay isku tashatay isku tashi marka aad heshaan baacidda marka wax qabanaysan imaanaysa marka wax ummaddu wax qabsato ba wax lala qaban karaa marka insha Allah taala aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa waana barnaamij talaabo qaaday waana barnaamij ruuxantii mira dhal leh waxaan cid kasta oo ka qayb qaadatay gudaha iyo dibadda waan mahadcelinayaa